kulankani maanta ay yeesheen golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay khudbad kaga dhigeysanayeen madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo degmada Jowhar maalmahaniba safar kaga maqnaa waxaana kulanka khudbada looga dhigeysanayay madaxweyne Cosoble ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cusmaan Bare Maxamed kaasi oo sheegay in golaha baarlamaanka ee Hirshabelle ay u taagan yihiin qabashada shaqo walba oo soo wajahda maamulka Hirshabelle isla markaasina meelmarinteeda laga doonayo golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle maanta waxaa fadhiya 72 yani xildhibaan saas ayuu kulan ku buuxaa ajendaha waxaa waaye madaxweynaha gobolka Hirshabelle maadaama uu muddo badan shaqaynayo inuu warbixin ama hadal ku jeediyo baarlamaanka si loo qabto kadib khudbada gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed waxa uu mikrofoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble kaasi oo ka warbixiyay safarka maalmahan uu kaga maqnaa xarunta maamulka Hirshabelle isla markaasina sheegay in waxqabad balaaran uu ka soo hooyay safaradii uu ku maqnaa aniga Axmed howlaha sirar sida la socotaan dalka annaga waxa ku dhisanahay waxa weeye oo halkan aan ku qornaa nidaamka federaalka ee sharciyada Soomaaliya dastuurkiisa ku qoran sharciga waxa weeye dowladda federaalka ayaa dalka Soomaaliya ku jirta nidaamka federaalka xeerar ay leeyahay iyo waxa weeye qaanuun inta oo ay ku jiro madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa lagu wadaa in dib kaga duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar isagoo sheegay in safar shaqo uu kaga bixi doono magaalada Jowhar. Cabdi Fataax Ahmed Maclow, Cabdi Fataax Zaki, Bulsha TV, Jowhar.